بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. halkan waxaan baaq uga dirayaa jaaliyadda Sambiya iyo majeerteenka Sambiya ayaan baaq uga dirayaa dhambaala nimayow waxa weeye dowladda Sambiya dadka ku nool oo Soomaalida ah waddanka Sambiya dad wanaagsan baanu ugu nimi haddaan nahay dadkii istiraad Soomaaliya uga yimi ama Soomaaliya oo dhan waxaanu ugu nimi dad sharaf iyo qiimo leh oo si wacan loo soo dhaweeyay oo dadkoo dhan soo dhaweeyay oo xafiisyadooda iyo ganjeelooyinkooduba u furan yihiin iyo shaqadooduba Soomaalidana qiimeeya mid walba hawiye daarood isaaq everywhere dad wanaajiya oo Mareykan kuwa jooga halkan uga fiican waana meel wanaagsan dad qiimo iyo qadarinba u haya Soomaali oo majeerteen la yiraahdo ayaanu ugu nimi majeerteenna markii la sii kala tago waxa waddankan number ka ah Maxamuud Salaabaan waxa ku xiga nimanka la yiraahdo Nuux Jibraahil labada qabiilo oo majeerteena ayaa number iska ah Maxamuud Salaabaan iyo Nuux Jibraahil nimayo markaa oo ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba ugu badan leh marka waxaan u dirayaa baaq nimayo dalkan dal wacan weeye dad wanaagsanna joogo waxa weeye waxa yimi dad Kenya iyo East Africa iyo dhulka ka yimi nimayo markaa dhaqan xumay la yimaadeen dhaqankii hore oo wanaagsanaan ku joognay aan ahayn hadday sii joogaanna dee dhaqankii bay xumaynayaan oo idinka laftigiinnii bay idin tallaalayaan waxaana weeye inaad u sheegtaan oo dhaqanka bartaan waayo Soomaali baa la wada yahay lama kala maarmo waana la isku qasban yahay xorna waa la yahay balse dee tol wanaagsan baa tihiin iyo saad u wanaagsan tihiin dadka wanaagga u fara waxa weeye nimanka la yiraahdo niman waxaa naga yimi East Africa nimayow baawur ururisa keenay oo East Africa oo dhan ama Kenya oo dhan ay soo ururisay oo la yiraahdo Midway qayb ka mid oo nin Maraxaan haysto iyo Ibrahim ninka la yiraahdo aanu ilmaadeer ka nahay oo isna 200 oo gaari keenay oo Kenya oo dhan soo ururisay marka waxaana isagu ku leeyahay ilaa 20 gaari nimayo markaas Soomaali nimankaasi way cayriyeen ridooda kama furaan xafiiskooda ma galaan xataa dhulbahanto uu ka dhashay ma galaan marka waxa idin sheegayaa nimayo talow idinka la taytala oo la daraja oo la hanti leh way wax idin ka maqlayaan khaasadan idinka ku soo dhaweeyay waddanka oo si xushmad leh u keenay khaasatan waxaan la sii hadlayaa ninka la yiraahdo Maxamed Ciise iyo Abshir Coon oo waddanka ku soo dhaweeyay oo si sharaf leh iridihii kasta u furay oo wixii isku taagay ka caawiyay oo si wacan oo wanaagsan oo gobonnimo leh businesskooda iyo wanaagooda iyo deegaanaysiba ugu soo dhaweeyay oo de waddanka macnaha loogu yimi inaad wax u sheegtaan oo tiraahdaan albaabada u fura dadka sida idinkuba ugu furantay idinkoo ma cid baa qasab idinku leh idinka dadnimadiinna iyo raganimadiinna iyo gobonnimadiinna ugu furteen uguma idinaan furin wax kale dee dadka gobonnimada iyo wanaagga baranimayo haddii kale dee xoogsatadii dalka way ka saarayaan dadka masaakiinta xoogsanayay 500 oo gaari bay keenayaan nin Soomaali uma shaqeeyo waxa weeye markaa waa inaad dadkii wax ka siisaan oo xoogsatadii darawalinta aan u hadlaya oo afka darawalinta iyo shaqaalaha iyo xoogsatada iyo xafiisyada kuwa ka shaqeeyaba u hadlaya waxa weeye in nimanka aad wax ka qabataan haddaydaan ka qaban karinna dee dalka in laga qabtay u baahan yihiin oo aad wax u sheegtaan nimayo markaa ilaa waa kharibayaan Soomaalinimadii bay kharibayaan Soomaalinimadii baa meesha ka baxaysa oo helnimadii baa ka baxaysa marka aad baa u mahadsantihiin majeerteen
boqolkiiba boqol waa idin salaamayaa aniga ma jeerteen 9 sanaan la soo shaqaynayaa sharaf iyo wanaag baan noo hayaa anoo aan how ayu aqoon baan noo wadankay sharaf iyo wanaag bay igu siiyeen oo yidhaahdo orod kaxayso marka anuu hadda waxaan kaga doonayana ma jirto mid kuwaanna wax ka dooni maayo tolkayna waxba kaga dooni maayo laakiin wax xaqiiqada jirtaan kaga hadlaya waana idin salaamayaa nimayo